shacabka degan xaafadda Cali Macow ee degma baarlamaanka Taashib ee magaalada Wajeer ayaa gabi ahaanba ka hor yimi gawaarida qashinka iyo saxaraha ku shuba god u dhow xaafadaasi iyagoo sheegay in qashinka laga soo qaado qaybaha kala duwan ee magaalada lagu shubo god ku yaala xaafadaasi shacabkaasi ayaa cabashadooda waxay ku sheegeen in ay gabi ahaanba caafimaadkooda aysan u wanaagsanayn qashinkaasi magacaygu waxa la yiraahdaa Axmed Nuur Cabdi retired senior chief Wajir Town deegaan ahaanna waxaan deganahay Cali Macow location waxaan u sheegayaa adduun weyna iyo dhammaan Wajir County meeshan dambi site-ka oo lagu shubaya wasaqda waa xaafadda dhexdeeda dib weyn ay nagu haysaa dibka oo xaaladayna caafimaad waxay ku sugan tahay halis sababtoo dambi site-ki oo markaan xaafadda dhexdeeda midda labaad oo haddana aan meeshii loogu talagalay xaafadda aan wasaqdi lagu samaynin oo lagu shubaya xaafadda dhexdeeda Cali Macow waan degana 93 daan soo degay ilaa waqtigan aan joogo meesha la yiraahdo sawishka oo qashanka lagu guro yaan ka cawanayna dhabka aynu u hayso waa saa'id madda la yaab kale la yaabnay oo na haysata dadweynaha iyo dawladda ay arki karaan meesha qashanka looga talagalay iyo xaafadda dhexdooda geed abaq oo gaar aan ugu gidin male waxa dheeri baqtiga laga soo qaad nuur ama waa gal laga keenay waxa la keenay xaafadda korkeed meesha ay la keenay waxaan ka cawanaynaa godxaar way ilmahena qatar ugu sugan yihiin caafimaadkiina as qatar ku jiro wasaqdiyo meel walba laga soo qaadayo hatta lagu sameeyay dhawnkii loogu tiragalay oo bolodiyaha dhexdooda lagu daadanayo qaas ahaan aniga hadda bolodka aan taaganahay ana iska leh wasaqdina asaga lagu wala shubay godkii lagu siman ariga waa ku dhamaaday godkaas ku daadanaa arbadii isbitaalaha laga soo xaabay farmashowda isbitaalka dawladda laga keenay dhaxda lagu shubaa ariga cunaay arbadii eriya ku dhamaaday waxaan ka soo jeedaa mayatadan Cali Macow waxaan dib nagu haysataa dumping site-kan waxaana jecleen dumping site-kan in meel kale lagu guuriyo though it's affecting our farmlands it's affecting our water table which is also affecting the health of our locals and our children. sidoo kale waxay baaq u jeediyeen madaxda dawladda countiga Wajeer iyo midda sare in ay wax ka qabtaan cabashadooda sidoo kalena meel magaalada ka baxsan laga geeyo godkaasi lagu shubo wasaqda iyo saxaraha qasaarada naga soo gaashay meeshan wax la koobi kara ma wax la xisaabi kara ma mar waxay jirtay saca yar aan qabay oo godxaar kor deganay meeshan aan deganay wax salaga ku xarooday oo waraabo kullaayi wax babac iyo carbad ay dishiba loo soo doonaa meeshan aniga maqan faantiida hadlay xaafadda anta magan u kaca xoolaha xaafadda ay baacadeen ka maqan oo godxaar sababsatay wax la xisaabi kara ma markaan dhabka asaga intaan la dul qaadin oo dawladda ma ay gashay ila taqaanay dad badan hadda ma gorduuya ma ka sabaran dadkan hadda waa ka sabarsan maalin kasta ilmaha ku imaadeen xaafadda ka imaadeen soodhada egesbaaya cana egesbaaya cabaan oo habeen kasta maar kasta isbitaal la siixiyaa inta soo cunug oo ama aan adeer waay ama aan aniga dhalay aan qarash ku bixi oo isbitaal ay maqaastay aan la saaxdeen egesbaaya ay cabeen darteed ugu dambeyntii goobtani lagu shubo wasaqda laga soo qaado qaybaha kala duwan ee magaalada Wajeer ayaa halis ku ah xaaladda caafimaad ee xaafadda Cali Macow dawladda ayada abad dhul u haysay in laga la raro oo naga la xiro marka waxaan ka cabanaynaa oo u sheegaynaa dawladda in nagala xira dambi site-kan oo la geeyo site kale oo magaalada Wajeer ka dheer maxaa yeelay dibka ay nagu haysato yar ma marka waxaan dawladda ka codsanaynaa national government iyo county government ba ayada awood baa xal haysata in ay dhaamkan meel kale u dadayda way caafimaadka xaafadda wax ka qabtaan oo wasaqdan xaafadda laga dul qaado ayaan dawladda ka codsanaynaa so we urge need and request from the county government and the national government to please relocate this dumping site to another place xilliyada roobka taasi oo dawladda countiga Wajeer ay ka codsadeen in wasaqdaasi laga geeyo goob ka fog xaafadda Cali Macow Anisa binti Rashid
telefishinka Alfa ismaamulka Wajeer.